بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sida nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal hala soo dhawaado waxaan joognaa degmada Daarisalaam waxaana iib ah boos bannaan oo laamiga u dhow sidoo laamiga u dhow waa arki doontaan hadda waxaa ka soo bilownay booska waxaan u soconnaa dhanka iyo laamiga weyn ee Daarisalaam oo uu ku dhow yahay walaalayaal waxaan guda galayaa xogta booskan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo booskan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada Daarisalaam oo ka mid ah degmooyinka dhowaan lagu soo biiriyay gobolka Banaadir waa degmo aad iyo aad u dhisan horumar badan sameysay degmada Daarisalaam walaalayaal waxa uu uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaan Alburuuj xaafadda Alburuuj waxay ka mid tahay xaafadaha degmada Daarisalaam haddii aan tilmaan ka bixiyo waxay u dhowdahay argada Daarisalaam oo ah iridda laga galo xaafadda Daarisalaam ee isteedida ah ee dhisan waxa kale uu ku dhow yahay suuq meel ah dhankan hadda ay kaamirada hayso waxaa naga xigto argadii dhinaca kalena waxaa waaye dhankaas iyo wadada ka imaaneysay laamiga warshadaha yani laamiga dhinacana daba raacdo waxaa ku dhacaysaa laamiga warshadaha walaalayaal booska iibka ahne waa meeshaan bannaan ee geedaha yarka ay ka baxayaan wuxuu dhabarka ku hayaa gurigaas villada ah waa xaafad camiran sida u jeedaan dhan walba ka dhisan laamiga inta u jiro haddii laga hadlo laamiga waxa u jira 6 boos oo keliya dabaqaas ayaa laamiga ah marka waxa uu booskani ka yahay booska 7aad runtii waa boos ku yaala meel istiraatiiji ah waxyaabihii dhulka laga fiirihaye oo dhan ay u dhan yihiin haddii la dhaho camirnaan ama deegaan ahaan iyo wadda ahaan waddadan weynna waa ay hormartaa oo kugu ridaysa laamigana sidaas ayuu aad kugu dhow yahay marka laga faa'iidaysto walaalayaal waxyaabo kale uu ku fiican yahayna waa soo wadaa haddii aan u imaado xagga cabirka walaalayaal cabirka oo dhulkaani ku fadhiyo waa 20-15 ama finti barkuundishe dadka qaarkood sida u yaqaanaan 15 mitir waxa uu ka haystaa wadadan weyn ee guriga dhulka hormarta ah dhehe dherer ahaanna waxa uu yahay 20 mitir waa cabir macquul ah oo aad u weyn oo laga dhiso ilaa 2 guri 2 fillo ayaa ka dhisi kartaa oo filladii ay tahay 4 qol 2 musqul jiko barxadii barandadii markii walaalayaal la soo dhawaada laga faa'iideysto xagga cabirka waa heer sare haddii aan ka hadlo qiimaha ama lacagta lagu rabo booskan iibka ah walaalayaal booskani waxaa lagu rabaa 38,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis wixii macquul ah waa laga faragelinayaa insha allahu tacaala lacagta aan idiin sheegana booskan si fiican ugu qalmaa maxaa yeelay waa boos ku yaalla meel ganacsi ah suuq ah waa ujeedaan goobaha ganacsi ee idiin muuqda laamiga u dhow haddana meeshii ugu fiicnay Daarisalaam ugu istiraatiijisneed ku yaalla waxa uu u dhexeeyaa Doogle markaa ka timaado iyo argada xaafadaha u dhexeeya waaye laamiga marka la dhahana waxaa loo leexanayaa dhanka qorax ka soo baxa ama dhanka bari oo ah soonihii waagi hore loo yaqiinay Daarisalaam qaybta Yaaqshiid laakiin maadaama hadda degmo laga dhigay degmada Daarisalaam saas ku noqotay
dhinacaasna aad ayaa loo jecel yahay. Waxaa ka dhisan guri aad u qurux badan, isteediyadii ayaa kuu dhow. Sidoo kale wuxuu ku aadan yahay booskaani laamiga Alburuuj oo asagana laami kale ah, taasoo qiimo u yeelaysa. Marka in aan isku dhufano waxyaabahaas oo dhan, waxaa dareemaysaa in booskaani uu yahay boos qiimihiisa oo macquul yahay. Walaalayaal, haddii aad danaynaysiin nala soo xiriira, lambarada meesha ku qoran naga soo waca. Haddii aan shirkadda Dallis nahay, waxaa diyaar u nahay inaan idin wadno, idin geyno. Markaad indhihiina ku aragtaan oo aad si fiican ugu qanacdaan, taasoo rajo fiican ka qabno, waxaa ka heshiinaynaa qiimaha. Insha Allah in wax badan laga dhimana waa rajaynaynaa. Laakiin mar walba dhulka qiimihiisa waxay ku xiran tahay meesha uu ku yaallo. Marka meeshaana waa meel qiimo leh oo aan la iska heli karin. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo jidadka uu leeyahay booskaani, walaalayaal waa hal jidle. Waxaa hormarta wadadan aad aragtaan, wuxuu ku jiraa balooga koowaad ee laamiga ka soo bilaabanaya. Baloogii safkii waa 8 boos. Marka booska u dambeeya ee laba jidlaha kan ka sukeeyo ayuu noqonayaa. Sidaas awgeed waxa uu ku yahay hal jidle. Waxaa hormarta hal wado. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo jihada u jeedo ama jihada guriga laga dhiso loo jeedin karo, walaalayaal booskaani waa koonfur ujeed, hal jidle ah, laakiin waddo weyn haysta. laamigana sidaa idiin sheegay aad ugu dhow. Marka walaalayaal, la soo dhawaada, laga faa'iideysto. Haddii aan ka hadlo xagga dukumiintiga, walaalayaal dukumiintiga booskaani waa uu dhammaystiran yahay. Waa dukumiinti saxan oo rasiid iyo sabarloog ah. macnaha rasiid iyo sabarloog original ah ayuu leeyahay. Waxaa intaas dheer, waxa uu boosku ka wareegayaa qofkii oo ku soo baxay oo rasiidka sabarlooga oo magaciisa ku qoran yahay. Dabcan sidoo kalena warqadaha kale ee muhiimka ah ee loo baahan yahayna waa ay u dhan yihiin. hala soo dhawaado. Waxaa intaas dheer, boosku waxa uu ku yaalaa goof la jecel yahay oo ka mid ah goofafka ugu caansan ama ugu waaweyn Daarusalaam, oo dadka aad u jecel yihiin. boosaskiisa oo dhan ay nadiif yihiin, wax isqa qabsi wax dhibaato ah aanan lahayn. waa meelihii kow Daarusalaam la maalgashtay oo dadka gudaha iyo dibadda iyo dadka hantida haysta ay aad u maalgashteen. Marka la soo dhawaado, waa dhul yacni qiimihiisa mar walba la filayo inuu kor u sii kaco. Dhulkaana hadda lacagta uu yahay iyo meesha uu ku yaalla sida uu kobcayso waa dhul raqiis ku ah. Walaalayaal, haddii aad soonahan dhulku leedihiin, nala soo xiriira iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. waa idin suuq geynaynaa insha Allahu tacaala. Sidoo kale meel alla meesha dhulka ratiin 20 degmo gobolka Banaadir waa idinkaga helaynaa insha Allah. lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira kaliya. ugu dambeyntii, walaalayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate, walaalayaal soo dhawaada. ku soo dhawaada gacmo furan, ku soo dhawaada qalbi furan, ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya. haddaba walaalayaal, sidaa nooga barateenba, waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah. walaalayaal, ku soo dhawaada, daawasho wacan, ka faa'iidaysi wacan. waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu tacaala. walaalayaal, hala soo dhawaado. waxaan joognaa degmada Daarusalaam. waxaana iib ah boos bannaan oo laamiga u dhow. sidoo laamiga u dhow waa arki doontaan. hadda waxaa kasoo bilownay booska, waxaan u soconnaa dhanka iyo laamiga weyn ee Daarusalaam.
oo uu ku dhow yahay. walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta booskan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan. walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo booskan iibka ah, waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho. magaalada muqdishona waxa uga sii yaallaa degmada daarisalaam oo ka mid ah degmooyinka dhowaan lagu soo biiriyey gobolka banaadir. waa degmo aad iyo aad u dhisan, horumar badan samaysay. degmada daarisalaam walaalayaal wuxuu uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano alburuuj. xaafadda alburuuj waxay ka mid tahay xaafadaha degmada daarisalaam. haddii aan tilmaan ka bixiyo, waxay u dhowdahay argada daarisalaam oo ah iridda laga galo xaafadda daarisalaam ee isteedyada ah ee dhisan. waxaa kale uu ku dhow yahay suuq meel ah. dhankan hadda ay kaamirada hayso waxaa naga xigto argadii, dhinaca kalena waxaa waaye dhankaas iyo wadada ka imaaneysay laamiga warshadaha. yani laamiga dhinacna daba raacdo waxaa ku dhacaysaa laamiga warshadaha. walaalayaal booska iibka ane waa meeshaan bannaan ee geedaha yarka ay ka baxayaan. wuxuu dhabarka ku hayaa gurigaas villada ah. waa xaafad camiran sida ujeedaan, dhan walba ka dhisan. laamiga inta u jiro haddii laga hadlo, laamiga waxaa u jira 6 boos oo keliya. dabaqaas ayaa laamiga ah. marka waxa uu booskani ka yahay booska 7aad. runtii waa boos ku yaalla meel istiraatiiji ah. waxyaabihii dhulka laga fiirihaye oo dhan ay u dhan yihiin, haddii la dhaho camirnaan ama deegaan ahaan iyo wadda ahaan. waddadan weynna waa hormartaa oo kugu ridaysa laamiga. laamigana sidaas ayuu aad kugu dhow yahay. marka laga faa'iidaysto walaalayaal, waxyaabo kale uu ku fiican yahayna waa soo wadaa. haddii aan u imaado xagga cabirka, walaalayaal cabirka oo dhulkaani ku fadhiyo waa 20-15 ama finti barkuundishe dadka qaarkood sida u yaqaanaan. 15 mitir waxa uu ka haystaa wadadan weyn ee guriga dhulka hormarta ah dhehe. dhirar ahaanna waxa uu yahay 20 mitir. waa cabir macquul ah oo aad u weyn oo laga dhiso ilaa 2 guri, 2 fillo ayaa ka dhisi kartaa. oo filladii ay tahay 4 qol, 2 musqul, jiko, barxadii, barandadii. markii walaalayaal la soo dhawaada laga faa'iidaysto xagga cabirka waa heer sare. haddii aan ka hadlo qiimaha ama lacagta lagu rabo booskan iibka ah, walaalayaal booskani waxaa lagu rabaa 38,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis. wixii macquul ah waa laga faragelinayaa insha allahu tacaala. lacagta aan idiin sheegana booskan si fiican ugu qalmaa, maxaa yeelay waa boos ku yaalla meel ganacsi ah, suuq ah. waa ujeedaan goobaha ganacsi ee idiin muuqda, laamiga u dhow, haddana meeshii ugu fiicneed daarisalaam oo ugu istiraatiijisneed ku yaalla. waxa uu u dhexeeyaa doogle markaa ka timaado iyo argada, xaafadaha u dhexeeya waaye. laamiga marka la dhahana waxaa loo leexanayaa dhanka qorax ka soo baxa ama dhanka bari oo ah soonihii waagii hore loo yaqiinay daarisalaam qaybta yaaqshiid. laakiin maadaama hadda degmo laga dhigay ee degmada daarisalaam saas ku naqatay, dhinacaasna aad ayaa loo jecel yahay. waxaa ka dhisan guri aad u qurux badan, isteedyadii ayaa kuu dhow. sidoo kale wuxuu ku aadan yahay booskani laamiga alburuuj oo asagana laami kale ah, taasoo qiimo u yeelaysa. marka in isku dhudhufanno waxyaabahaas oo dhan, waxaa dareemaysaa in booskani uu yahay boos qiimihiisa oo macquul yahay. walaalayaal haddii aad daneynaysiin nala soo xiriira, lambarada meesha ku qoran naga soo waca. haddii aad shirkadda dallisnahay waxaa diyaar u nahay inaan idin wadno, idin geyno. markaad indhihiina ku aragtaan oo aad si fiican ugu qanacdaan, taasoo rajo fiican ka qabno, waxaa ka heshiinaynaa qiimaha. insha allahu in wax badan lagaa dhiman waa rajaynaynaa. laakiin mar walbo dhulka qiimihiisa waxay ku xiran tahay meesha uu ku yaallo. marka meeshaana waa meel qiimo leh oo aan la iska heli karin. walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka uu leeyahay booskani, walaalayaal waa hal jidle
waxaa hormarta wadadan aad aragtaan wuxuu ku jiraa balooga koowaad ee laamiga kasoo bilaabanaya. baloogii safkii waa 8 boos, marka booska u dambeeya ee laba jidlaha kan ka sukeeyo ayuu noqonayaa. sidaas awgeed waxa uu ku yahay hal jidle, waxaa hormarta hal wado. walaalayaal haddii aan ka hadlo jihada u jeedo ama jihada guriga laga dhiso loo jeedin karo, walaalayaal booskaani waa koonfur ujeed hal jidle ah, laakiin waddo weyn haysta laamigana sidaa idiin sheegayba aad ugu dhow. marka walaalayaal la soo dhawaada laga faa'iideysto. haddii aan ka hadlo xagga dukumentiga, walaalayaal dukumentiga booskaani waa uu dhammaystiran yahay. waa dukumenti saxan oo rasiid iyo sabarloog ah, macnaha rasiid iyo sabarloog original ah ayuu leeyahay. waxaa intaas dheer waxa uu boosku ka wareegayaa qofkii oo ku soo baxay oo rasiidka iyo sabarlooga oo magaciisa ku qoran yahay. dabcan sidoo kalena warqadaha kale ee muhiimka ah ee loo baahan yahana waa ay u dhan yihiin. hala soo dhawaado. waxaa intaas dheer boosku waxa uu ku yaalaa goof la jecel yahay oo ka mid ah goofafka ugu caansan ama ugu waaweyn Daarusalaam, oo dadka aad u jecel yihiin. boosaskiisa oo dhan ay nadiif yihiin, waxa isqa qabsi wax dhibaato ah aanan lahayn. waa meelihii kow Daarusalaam la maalgashtay oo dadka gudaha iyo dibadda iyo dadka hantida haysta ay aad u maalgashteen. marka la soo dhawaado waa dhul yacni qiimihiisa mar walba la filayo inuu kor usii kaco. dhulkaana hadda lacagta uu yahay iyo meesha uu ku yaalla sida uu kobcayso waa dhul raqiis ku ah. walaalayaal haddii aad soonahan dhulku leedihiin nala soo xiriira iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waa idiin suuq geynaynaa insha allahu tacaala. sidoo kale meel alla meesha dhulka ratiin 20 degmo gobolka Banaadir waa idinkaga helaynaa insha allah. lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira keliya. ugu dambeyntii walaalayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.